بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo naga dheehanaysaan halka aad nagala soconaysaan alaaba waa cagta iyo dunida CID Pro TV iyo wararka wareysiyada iyo waxaan usoo joogay oo aad mar walba kala socotaan xogtii ugu dambeysay dunida 24 saac ee la soo dhaafaba maalintu waa maalin Arbaca ah waa 12 bisha Agoosto 2026 qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaa kamid ah iyadoo 8 bishii hore ee July shirkii gaashaanbuurta NATO 32 hogaamiye uu ka dhacay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga oo ay ka wada hadleen amuurahooda ku saabsan difaacooda iyo siyaasadda u degsan NATO ayaa shirku markii uu dhamaaday guud ahaanba hogaamiyaashii ay kala laabteen iyagoo qolo walba ay ku laabanaysa halkii markii hore ay ka timid madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J Trump oo isagoo ka soo kici timay magaalada Washington DC ayaa kamid ah hogaamiyaasha ka qayb galay shirka NATO kadibna ka laabanayay laakiin wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan markii uu tagay gegida dayuuradaha ee uu markii hore ka soo degay Ankara ku taala in uu galay dayuurada uu markii hore ku yimid Air Force One oo ah midda ay dawladda Qatar hadiid ahaanta u siisay ee joogta 400 milyan ee dollarka Mareykanka oo lagu magacaabo 0.7478 laakiinse diyaaradda markii uu galay waxaa jirtay sida wararku ay sheegayaan cabsi xoog leh oo ah dawladda Iran inay diyaaradda bartilmaameedsan karto uu saaran yahay Donald J Trump laakiinse waxaa dhacday in si qarsoodiya diyaaradda madaxweynaha looga dejiyay Air Force One ee amida hadiyadda loo bixiyay ee markii hore uu ku yimid ee dawladda Qatar ee 0.7478 gawaarida lagu magacaabo kuwa caterinka amaba cuntada geeya dayuuradaha oo dadku markii hawada ku jiraan cuntooyinka ay cunaan iyagu geeya ayaa laba kamid ah gawaaridaasi oo taraagyada nooca loo yaqaano waxa ay dhinacyada ka galeen dayuuradda Air Force One ee madaxweynuhu uu ku yimid iminkana gudaheeda uu ku jiray waqtigaas laakiinse labada gaari ee matalayay inay cunto diyaaradda ku shubayaan looma geynin ee waxaa loo geeyay madaxweynaha Donald J Trump in uu mid kamid ah uu soo dhex galo taraagyadaas cuntada ee loogu talagalay diyaaradda kadibna uu galay kadibna ay soo qaadeen kadibna ay u keeneen dayuurad kale oo military oo isla garoonka tiil iyadoo cidna aysan la soconin dayuuradaasi iyada ah ee militariga waxaa lagu magacaabaa C-32A oo ah nooca 757 point laakiin militariga ayaa iskale madaxweyne Donald J Trump si qarsoodiya ayaa loo dhexgeeyay waxaa kaloo isaguna salaam ku soo fuulay xogayaha gaashaandhigga Amerikaanka Pete Hegseth dadkii kale ee shaqaalaha aqalka cad iyo wariyaashii la socday Air Force One ee Qatar ee ay ahayd madaxweynuhu inuu raaco iyagu dayuuradda gudaheeda ay baaqi ku ahayeen waxaana qolyaha lagu magacaabo ciidamada sirta ee service u sheegeen dadku inay dariishadaha ay dejiyaan daaha ku aadan oo aan markaasi la furin amniga dartii laakiinse mid kamid ah dadka iyagu wax sawira ayaa in yar furay isagana markiiba lagu degdego waxaa la yiri deji dayuuradda Air Force One ee Qatar hadiid ahaanta ay u dhiibtay iyo dayuuradii militariga ee sida qarsoodiga loo soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump labaduba waxay ka soo kici timeen gegida dayuuradaha ee magaalada Ankara waxayna ku soo degeen saldhig military oo ku yaala UK markay labaduba soo caga dhigteen ayaa si caadi ah madaxweynaha looga soo dejiyay dayuuradii militariga ee lagu magacaabayay C-32A ee 757 kadibna waxaa loo galbiyay dayuuradda Air Force One ee Qatar hadiid ahaanta u siisay oo ay sii fadhiyeen dhexdeeda wariyaashii kala duwanaa ee ka socday guud ahaanba warbaahinta Mareykanka iyo shaqaalihii aqalka cad madaxweynaha si tartiiba ayaa loo soo saaray si caadi ah dayuuradda Air Force One 7478 kadibna ka kicitintay gegida dayuuradaha ee militariga ee UK sidaasina ay ku aaday Washington DC su'aasha hadaba waxay tahay bil iyo maalmo kadib ayaa arrinkan la kashifaya oo la sheegaya waxaa warka qortay jaridada Washington Post oo iyadoo faahfaahin ka bixisay inta aan idinku soo gudbiyay oo ah qaabka iyo sida iyadoo la soo bandhigay sawirro markaasi Ankara markay labada dayuuradood militariga ee Air Force One ay fadhiyeen oo waliba la soo koobayo meesha ay baabuurtu istaagtay halka madaxweynaha laga soo dejinayo laakiin cidna aanay ogeyn bildan lama kashifin laakiin intaas waxaa ku qoob joogay qolyaha warbaahinta ama kuwa sawirrada qaada kuwa idaacadaha kuwa telefishinada iyo kuwa joornaalada ee wax qora waxaa warkan sidoo kale soo gudbisay New York Times laakiin arrinkan waxaa si buuxda u kashiftay oo barnaamijkan bilow ilaa dhamaad soo bandhigtay marka la fiiriyo waa Washington Post oo kamid ah kuwa ugu afka dheer ee dhinaca warbaahinta qoraalada ee waddanka Mareykanka
arrintaasi waxa ay ka dambeysay cabsi laga qabay Iran maadaama la sheegay madaxweyne Donald J. Trump hore inuu u sheegay muddo dheerba aad ayuu uga cabsi qabay oo wadnaha farta ayuu ku hayay Iran inay mar uun beegsan karto. arrimahaas inay hadalkiisu jiro waxaa caddaynaya markii uu ku jiray ololaha doorashada 2024 ee labada jeer la weeraray, marna isagoo joogay magaalo la yiraahdo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania, marna halka uu ku leeyahay Florida ee lagu ciyaaro golfta lagu qabtanin. intaba wuxuu si gaar ah u codsaday ciidamo gaar ah in la siiyo maadaama uu aaminsan yahay in Iran ay carrada soo gashay. waxaa kale oo jirta in Republicanka la jabsaday email-ladooda oo xogtii ku jirta loo gudbiyay dhinaca Joe Biden iyo gabadhii markaa la tartamaysay Kamala Harris. taa lafteeda waxaa lagu eedeeyay in ay Iran ka dambayso run iyo beenba lama oga, laakiin cabsidani waxay timid Donald J. Trump iyo rag kale oo ka tirsanaan jiray maamulkiisaba tan iyo intii la dilay nin generaal ahaa oo Qasim la oran jiray oo lagu dilay marka la fiiriyo gudaha waddanka Ciraaq. wararka ka imanaya dalka Nigeria waxay shaaca ka qaadeen inay isfarasaareen qolyo qowlisata oo mootooyin wato hubaysan iyo ciidamada booliska iyo kuwa amniga. 10 ka mid ah booliskii ayaa halkaasi ku dhimatay, 17 ka mid ah qowlisadii hubaysnaa way dhinteen. arrintaasina waa arrin aan ugu bahayn marka la fiiriyo weerarada la isaga hor yimid. dhibkuna waxa uu ka dhacay gobol inta badan dhibaatadu ay ka dhacdo oo lagu magacaabo Kebbi State oo ka tirsan gobolada waddankaasi Nigeria. maamulayaasha Nigeria waxay sheegeen in lagu qoob joogo dadkii arrinkan ka dambeeyay maadaama inta dhimatay intaasi tahay iyadoo weliba militarigu la sheegay isaga laftiisu inuu qayb ka ah oo booliska kaliya aanay u daynin. dhib xoogle ayaa ka jiray waqtiyadii ugu dambeeyay gobolada dhinaca waqooyi bari iyo weliba koonfur galbeed ee waddanka Nigeria oo ragga kala duwan oo hubaysan dhibka xoogle ay ku hayeen marka la fiiriyo guud ahaanba waddanka Nigeria. gobolada ugu daran waa goboladii markii ugu dambeysay dhibka uu ka dhacay dadka laga afduubay sida gobolka lagu magacaabo Oyo, gobolka kale ee lagu magacaabo Zamfara, gobolka kale ee lagu magacaabo Sokoto, gobolka kale ee lagu magacaabo Katsina iyo iminka halka la isku galay ee Kebbi. intaasuba waa gobollo dhib xoogli uu ka jiro, laakiin waxaad moodaa inay ka dhibatsatay halka kale ee Borno lagu magacaabo oo iyaduna waqooyi bari ee Nigeria ka tirsan. wixii warar ay ku soo kordha weerarada ugu dambeeyay labada dhinacba dadka iska laayeen ee Nigeria, wararkayaga CID Baro TV biidnillaahi kariim. Mareykanka 4 urur oo degan oo xuquuqda bini'aadamka ayaa dacwad gudbiyay ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump iyo aqalka cad, taasoo ay uga soo horjeedaan dowladda Mareykanka oo la ugu jirta siday u waqi lahayd awoodda maxkamadda dambiyada dagaalka ICC ee magaalada The Hague. xogayaha arrimaha dibadda ee Ameerikaanka Marco Rubio ayaa 2 toddobaad ka hor waxa uu ka dhawaajiyay dowladda Mareykanku inay rabto inay weeqdo awoodda iyadoo ugu baaqaysa wadamo badan inay isaga baxaan maadaama Ameerikaanka iyo wadamo kale sida Israel aanay ka tirsanayn. 125 wadan ayaa ku saxiixday magaalada Rome heshiis ah in la soo qabto dadka dhibaatada geysta dagaaladu marka ay socdaan ee dambiyada dagaal iyo xasuuqa iyo dhibka geysta, taasoo markaas ay dhacday 2024 maxkamaddu inay warqad ka soo saartay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo xogayihiisa gaashaandhigga Yoav Gallant, taasoo Ameerikaanku aanay jeclaysan. dhowr jeer ayay cunaqabatayn ku soo rogeen maxkamadda iyo shaqaalaheeda iyo safaradooda iyo hantidooda intaba, laakiin iminka markay yiraahdeen guud ahaanba waa baabi'inaynaa waxay noqotay arrin ay ka xumaadaan dalalka xubnaha ka ah iyo ururada kale ee markaas iyagoo dhinaca xuquuqda bini'aadamka. 4 urur ayaa la sheegay inay isu bahaysteen dacwadaasi oo ka dhan ah Ameerikaanku tallaabada uu qaadanayo iyagoo u arka inay tahay lagama maarmaan ICC inay jirto si markaasi looga abaalmariyo cid kasta oo dhib ka geysata guud ahaanba adduunka. laakiin saluug ayaa jira maxkamadda lafteeda ay u qabaan wadamo badan oo dhinaca Latin America iyo dhinaca Afrika oo isu arkaan iyaga hogaamiyaashooda kaliya in la beegsado, laakiin dalalka kale ee adduunka sida Yurub iyo weliba Ameerikada waqooyi oo kale inaan marnaba aan lagu xadgudbin markii iyagu ay dhibaato sameeyaan, laakiin loo nugul yahay hogaamiyaasha Latin America iyo qaaradda Afrika. labadii dal ee u dambeysay ee sheegay inay ka baxayaan waa dalka Venezuela oo isagu ka tirsan dalalka Latin America iyo dalka Chad oo ka tirsan dalalka qaaradda Afrika. walow 24 saac ee ugu dambeysay warbixin ka soo baxday saraakiisha sare ee ICC ay ka codsadeen Venezuela iyo Chad inay ka noqdaan go'aamaday uga baxayaan oo ay joogaan si maxkamaddu u noqoto mid howlaheedu ay markaa u sii socdaan. halkaan nagala socotaan waa CID Baro TV wararka wareysiyada waxaan u soo joogay markana aanu ku nasano qadar xayisiisa oo ku saabsan xarunta daaweynta ilkaha ee Mega Dentist oo 2 xarumood ku leh Istanbul, xarunna ku leh Ankara magaalo madaxda waddanka Turkiga.
waxaan dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa in meega dandiista oo ku taalla magaalada istanbul 2 xarumood iyo meel ku taalla dalka turkiga qaar ahaan magaala madaxda ankara in lagugu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin meega dandiistii dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid adoo farxadaadu ay zaa'id tahay oo mahad celin inaad laaban doontid meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan meega dandiistu aad telefoonka shaashadda ka arkaysaan anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirtee lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan wararka ka imanaya magaala madaxda dalkaasi Hungary ee Budapest waxay shaaca ka qaadeen in baarlamaanku cod uu u qaado ansixiyay madaxweynaha cusub ee waddankaasi Hungary uu yeelan doono waa nin garsoore sare ahaan jiray maxkamadda sare ee dalka Hungary-na gudoomiye ka noqday oo lagu magacaabo András Baka oo 73 jir ah oo ninkaasi sabtidii la soo gudbiyay magaciisa talaadadiina markaasi cod loo qaaday aqalka marka la fiiriyo shacabka ee waddankaasi Hungary 140 xildhibaan ayaa ogolaatay inuu madaxweyne ka noqdo waddanka Hungary 8 ayaa diiday cidina kama aamusin arrinkani waxa uu ka dambeeyay markii bishii Abriil doorashooyinkii dhacay si aad dhulka loogu jiiday xisbigii talada ee uu hayay ninkii lagu magacaabi jiray Viktor Orban oo weliba ninkan garsooraha sare ahaa iminka madaxweynaha noqday aad ay isu diidanayeen ra'iisul wasaaraha ninka noqday dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Peter Machar ayaa isagoo hore u soo gudbiyay fariin ah inay meesha tahay inuu ka baxo madaxweynihii hore taasoo markaa madaxweynihii hore ee dalka Hungary uu meesha ka baxay kadibna ninkan garsooraha sare ah oo isagoo aqoon sare u leh guud ahaanba dhinaca sharciyada iyo horumarinta waddankaasi siyaasadiisa ayaa la soo gudbiyay magaciisa isagoo 73 jir ah ninkan isaga ee András Baka ee madaxweynaha noqonaya waxa uu 2 jeer noqday garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda reer Yurub ee ku taalla magaalada Strasbourg 2009 waxa uu noqday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Hungary maadaama uu ahaa nin hal adag oo inta badan naqdiya ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka Viktor Orban ee dabada looga dhacay ayuu 2 sano kadib jagada ka tuuray mar hadduu u arkay inuu khatar u yahay isagoo maxkamadda sare madax ka ahaa laakiin xisbiga TISA oo ah xisbiga aqlabiyadda haysta baarlamaanka dalka Hungary ayaa iyagu u codeeyo u arka horumar ballaaran iyo magac inuu u soo jeedi karo waddankaasi Hungary ugu dambaystiina qodobkeena waxa uu ku saabsan yahay jimcihii la soo dhaafay waxaa magaalada Maka al-Mukarrama oo ah magaalada barakeysan ee boqortooyada Sacuudi Arabiya heshiis dhinaca gaashaandhigga ku gaaray 3 waddan ee Sacuudiga iyo Turkiga iyo Pakistan waa heshiis dhinaca gaashaandhigga oo iskaashanayaan hadday noqoto xuduudda military ayagoon cidna ku duulayn laakiin qodobada ay ku heshiiyeen ay ka mid tahay haddii dalka mid ah 3 lagu soo duulay inay la mid tahay iyadoo labada kalena lagu duulay heshiiska waxaa qalinka ku duugay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha oo isaga marti loo ahaa madaxweyne Erdogan madaxweynaha waddankaasi Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi Pakistan Shahbaz Sharif waxaa daba la eegay xuduudda military ee 3 waddan ee Sacuudiga iyo marka la fiiriyo Pakistan iyo Turkiga waxaa la yiri Sacuudigu waa dhul barwaaqaysan oo awood lacageed ayuu leeyahay shidaal jeebkiisu waa buuran yahay xoolihiisu way badan yihiin waxaa la yiri Turkigu waa waddanka labaad ee ugu awood badan dhinaca NATO ciidamada marka Mareykanka laga yimaado Pakistanna waxaa la yiri waa waddan ciidankiisuna badan yahay hubka nuclear-kana haysta saddexdaba waxaa loo arkaa xuduud military oo wax ka bedelaysa badan istiraatiijiyadda military ee Ameerikaanka ee ka horeysay jimcihii iyo bariga dhexe waxaa la yiri waddankaasi marka la fiiriyo ee Pakistan dadkiisu aad bay u fara badan yihiin 270 milyan ayay ka badan yihiin waa waddan ku yaala qaaradda Asia waa muslim ciidamadiisa waxaa lagu sheegay 660,000 oo ciidan ah dalka Turkiga oo ah dalka labaad ee gaashaanbuurta NATO oo dal islaam ah heshiiskana wax ka saxiixay ciidankiisu waa 481,000 waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo heshiiska lagu gaaray ciidamadoodu waa 274,000 oo ciidan saddexda waddan diyaaradahooda ciidamada oo laga wado kuwa dagaalka iyo lobtarada iyo kuwa kaleba marka la isku daro waa 3,402 yuuro oo tiro aad u badan taangiyada saddexda waddan
waxaa lagu sheegay guud ahaanba waa Turkiga iyo Bakistan iyo Saudi Arabia 6,000 oo taanki. waxaa la yiri xagga badda 340 markab iyo qalabka kale ee la xiriira dhinaca badda waa inta la sheegay. baabuurta gaashaaman iyo baabuurta kale ee militariga marka la isku daro saddexda wadan waxaa la yiri waa 179,000 oo baabuur. waxaa intaasi dheer ciidankooda guud ahaan in la yiri waa 1.4 milyan oo ah ciidamada Bakistan, ciidamada Turkiga iyo ciidamada Sacuudiga oo la isku daray. haddaba xuduudda intaa la eg iyo qaabkaasi oo wadajir iyagu u noqda kuwo isu fahamsan horena xiriir uga dhaxayn jiray. maxaa yeelay horay Sacuudiga iyo marka la fiiriyo wadanka Bakistan xiriir baa ka dhaxeeyay, Turkiga iyo Sacuudiga xiriir baa ka dhaxeeyay, Turkiga iyo Bakistan xiriir baa ka dhaxeeyay. iyadoo awalba xiriiradaasi ay jireen ayay hadda isu tageen oo macnaheedu ay tahay gacmo wadajir ay wax ku gooyaan. taas marka waxay u muuqataa culays xoog leh oo ku soo siyaaday marka la fiiriyo awoodii hore uga jiri jirtay gobolka. waxaa weliba qolyaha ka faalooda arrimaha gaashaandhigu ay sheegeen istiraatiijiyadda Ameerikaanku in ay meesha ka baxayso. dhinaca kale dagaalkan iminka socda ee 6 bilood madaxa la galay Iran ee Israa'iil iyo Ameerikaanku ay ku qaadeen wuxuu wax ka bedelay wajigii hore ee Ameerikaanka iyo sumcaddii iyo Israa'iil ay ku lahaayeen gobolka bariga dhexe. maxaa yeelay muddo 6 dal ee gacanka ee boqortooyada Saudi Arabia iyo Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar iyo Istaga Imaaraadka Carabta iyo Saldanada Oman saldhigyo military ayaa ku yeelo dhinaca badda iyo dhinaca bariga iyo dhinaca cirka ee Ameerikaanku uu iska lahaa muddo dheer lacag badan uu ku qaadan jiray. 6 wadanba Iran way u tagtay wayna garaacday inta ay doontay siday doonto markii iyada la soo weeraray. taasi waxay muujisay inay meesha ka baxdo fahamkii ay 6 dal isu haysteen ee gacanku in ay yihiin kuwo mar walba Ameerika ay ilaaliso. taasi waxay ku muujinaysaa marka in ay kashifantay awoodii military ee ciidamada dalka Mareykanka ee gobolka gacanka. heshiiskaanina muxuu noqonayaa mid wuxuu noqonayaa u muuqday Sacuudiga iyo Turkiga iyo Bakistan inuu sii ballaarto oo wadamo badan ay ku biiraan oo weliba la sii magac dhabe la sii saadeeliyo dalka Masaarida. dabcan wadamada kale gacankuna way ku biiri karaan. wararka kale ayaanu ku eegi doonaa guud ahaanba wax kasta oo soo kordha oo ku saabsan isbahaysigan xuduudiisu ay sareyso xagga jeebka iyo xagga militariga intaba ee Sacuudiga, Bakistan iyo Turkiga. intaas ayaan kusoo khatimaynaa wararkeenii oo aad kala socoteen CID Pro TV wararka wareysiyada. waxaan usoo joogay subscribe xagee YouTube-ka CID, xagee Facebook-ga CID, xagee TikTok-ga CID. meel kastoo aad joogtaan maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda CID waxay idin leeyihiin saaxiib la noqda xogta joogtada ee biyo kama dhibcaanka ah ee haddaad mar aad daawatid aadan dib ugu laabanayn meel kastoo dunida aad ka joogtaan. tan iyo kula dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.